shir ay isugu yimaadeen odayaasha jaaliyadda Somaliland ee dalka Netherland ayaa waxay si cad ugu bayaamiyeen in ay sanadkan jaaliyadda Somaliland ee wadannada Benelux gaar ahaan dalka Netherland ay xafladda qarannimada 18 May sanadkan goob kaliya lagu qaban doono oo aanay jiri doonin kala qaybsanaan khilaaf iyo jahwareerkii saddexdii sano ee ugu dambeeyay haystay jaaliyadda Somaliland ee dalkan Holland. odayaashan oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Rotterdam ee dalka Netherland waxay si wada jir ah oo aan loo kala hadhin ugu heshiiyeen in ay xoojiyaan isku duubnida iyo walaalnimada jaaliyadda Somaliland si looga baxo ismaandhaafka iyo tartanka u dhaxeeya ururada dhalinyarada Somaliland ee dalka Netherland. odayaasha ayaa sheegay in ay sanadkan heegan u galeen ilaalinta midnimada sharafta iyo qarannimada dalka Somaliland. sidoo kalena waxay odayaashu ku booriyeen jaaliyadda Somaliland in ay si weyn uga soo qayb galaan 18 May oo lagu qaban doono sanadkan magaalada Utrecht oo ay u doorteen in ay tahay meel dhexdhexaad ah oo cid waliba iman karto. waa go'aan waxaanu halka ka soo saaraa go'aankaasi oo ay wada leeyihiin Somaliland riska degan waddanka Netherland la yiraahdo. qaraarka halka ka soo baxay waa midnimo ah oo Somaliland darnimo ah. waxaanu jecelahay halka inaasi idinku oo nooleynaya waxdadnimada qaranka in si fiican looga soo qayb galaa inaynu sidaa isku ogaanaa. haddii hore ay u jiri jirtay oo 3 sanadood hore ay jirtay in yar kala qaybsanaan Carabeed labadiisa daanba istiida maanta si fiican baan u midaysanahay taasi way dhamaatay hal meel oo lagu wada qabanayaa. marka dadweynaha Somaliland ee waddanka Holland degan waxaan ku wargelinayaa ka codsanayaa in la isugu yimaado. waxaanu ka midaysanahay haddaanu nahay jaaliyadda reer Somaliland ee Holland degan aan isku raacnay odayaashooda iyo ururadayadu waxaanu isku raacnay in laga dhigo 18 May ee qadiyadda Somaliland Utrecht. wax badan dadku waxay maqlayeen Amersfoort baa lagu dhigayaa xaflad Leiden baa lagu dhigayaa Meheblaya lagu dhigayaa dabadna dadku ku jaawareeri jireen arrimaha wax macnaa oo ka soo bixi jirayna maanu jirin. waxa imaka la go'aansaday tafraaraqa iyo khilaafka kadib in meel qura lagu wada dhigo oo meel qura ashcaarka Somaliland laga muujiyo dadku meel qura isugu yimaadaan si sharafka loo ilaaliyo Somaliland iyo haddii bedelkeeda leeyahay iyo bangaca Somaliland. waxaan u taaganahayna waxa weeye midnimada Somaliland. waxaanu ka midayseen oo mid ka ahayd inaynu helo hal xaflad oo lagu midaysan yahay oo mid kaliya ina arinta awoodda saartaan inaan idin kala qaybsanaan ina hal mid noqotaan. waxaan ugu bishaareynayaa bulshada ku nool Holland oo ay daashatay qaar kood fara badan iminka iska daayeen xafladaha sabab marka la yaado Leiden mid yar baa wax ku qabanaya Utrecht mid yar baa wax ku qabanaya wixii markii caanteen loo kala qaybsaday dadkii damiirka lahaa waxay go'aan bay ku gaadheen inaanay teginba. waxaan u baahanahay markaa shacab midaysan oo Somaliland darisa oo ay dhab ka tahay qadiyadda Somaliland. go'aan shir ururada iyo jaaliyadda iyo guurtidu markii ay shireen waxay soo saareen qodobada halkan hoos ku qoran oo ka hadlaya midaynta xafladda qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ee dalkan Netherland. lambar 1 in xafladda 18 May lagu qabanayo meel kaliya meeshaas oo ah magaalada Utrecht Central ee dalka Netherland. wargelin oo iyaduna ka mid ah go'aamada wargelintaas waxa la farayaa dhammaan dadka ku nool dalka Netherland ee ah Somalilanderka in ay ka soo qayb galaan muujinta iyo qarannimada xafladda jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Netherland. anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada reer Somaliland ee waddankan Holland ku nool kulay odayaashu ma tagaan xafladda Somaliland waxa tagaa waa dhalinyarada dhammaan dhalinyarada reer Somaliland ku talinaya meesha ay odayaasheenu iyo guurtideenu inoo soo go'aanka ku soo gaadhay inay tagaan dhammaantood ay soo wada qaataan calamada Somaliland. xafladda magaceeduna waxa weeye midnimo
dadka Soomaaliland waxaan ku bashaareynaa in xafladaas qiimo iyo qaayo badan ku soo qayb galaan mas-uuliyiinta jaaliyadda Somaliland ee dalka Netherland gaar ahaan odayaasha ayaa sheegay in ay xoogga saari doonaan midnimada iyo isku duubnaanta jaaliyadda Somaliland ee dalkan Holland oo 3 sano ugu dambeysay ururada ka dhisanay 3 meelood ay ku kala xusayeen maalinta qarannimada قبتا ولقوا بنتي عليو